bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idiin hayso waxaa u daroon ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo ballanka uga baxay kooxda ahlusunna waljamaaca ee gobolada dhexe iyo eedeyn ka bilaabatay dhuusamareeb wufuud kala duwan oo ka socota nairobi muqdisho gaalkacyo oo maanta ku soo wajahan magaalada cadaado ee gobolka galgaduud qabanqaabo xoogan oo loogu diyaargaroobayo soo dhoweynta madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo maanta laga dareemayo magaalada cadaado ee gobolka galgaduud maxay isku qabsadeen injineer yariisow gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo marwada koowaad ee madaxweyne farmaajo wasiir ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo sheegay in aan lagu xirin magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud madaxweynihii hore ee galmudug oo sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ku guuldareysatay xalinta galmudugga dowladda federaalka ee soomaaliya oo cambaaraysay afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay etoobiya madaxweynaha dowladda galmudug axmed ducaali geele xaaf oo diiran loogu soo dhoweeyey deegaanka godon labe iyo magaalooyin ka tirsan galgaduud iyo mudugga wejigii labaad ee dubahabeynta ciidanka xoogga dalka oo bilaabatay iyo dowladda soomaaliya iyo shiinaha oo kala saxiixday heshiiska dhismaha dekedda hobyo wararka dibadda ee warbaahinta isha wararka idiin hayso waxaa u dooran natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee istanbuul oo la shaaciyey ciidda ku guulaysatay waa hagaag daawadayaal intaas waxay ahaayeen qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan wararkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geele xaaf ayaa xalay ku hoyday deegaanka godonlabe oo u dhexeeya magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado ee gobolka galgaduud madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali geele xaaf ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey deegaanka godonlabe kadib markii uu safar dhulka ah uga mabaxay caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb warar kala duwan oo saacadihii ugu horreeyey xalay soo baxayay ayaa sheegaya in halkaas uu saldhigan doono isagoo la tilmaamay in maanta uu go-aansamo ama bixi doono magaalada cadaado ee gobolka galgaduud madaxweynaha dowladda galmudug axmed ducaali geele xaaf ayaan weli la hadlin saxaafadda tan iyo markii uu ka saamabaxay magaalada dhuusamareeb iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu doonayo inuu fariisiin ka dhigto magaalada cadaado ee gobolka galgaduud halkaas oo laga dareemayo qabanqaabo weyn oo loogu diyaargaroobayo soo dhoweynta axmed ducaali geele xaaf wararka aanu ka helay dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaas ay gaareen wafdi horudhac ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo la filayo in maanta uu gaaro magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo shalay uu ka amabaxay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geele xaaf maamulka galmudug ayaa u muuqda mid kala jajabaya iyadoo haatan meeshii ugu adkeyd ee gaartay xiisadda kadib markii uu madmadow soo kala dhex galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geele xaaf iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh axmed shaakir oo uu xiriir wanaagsan labadooda ka dhexeeyey waxaa jirtay in madaxweynaha galmudug axmed ducaali geele xaaf iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii maamulka kuwaas oo ay iska hor imaadeen taasoo keentay in maamulku uu fadhiin noqdo oo uu kala noqdo fariisin magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb isla wararka arrimaha galmudug ayaan ku guda jirnaa xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu labadii cishe u dambeysay uu sheegay in kooxda ahlusunna waljamaaca in uu booqasho ku imaanayo magaalada dhuusamareeb maanta ayaa la filayaa in ujeedka safarkiisa ay tahay in la siixo heshiis hoosaad kooxda ahlusunna waljamaaca iyadoo la filayay in madaxweyne xaaf uu goobjoog ka ahaa heshiiskaas laakiin aysan suuro gelin oo uu shalay ka amabaxay magaalada dhuusamareeb madaxweyne xaaf ayaa fahmay qorshaha kala wareegitaanka magaalada iyo inay jirto in xaaf la doonayo in la xiro oo la keeno muqdisho taas oo keentay in xaaf uu ka amabaxo magaalada dhuusamareeb shalay gelinkii dambe isaga oo la tilmaamay in xalay uu ku hoyday deegaanka godonlabe ee gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo og heshiis uu la galo kooxda ahlusunna waljamaaca keligeed inuusan meel mari karin ayaa waxaa saacadihii hore xalay la tilmaamay inay wada hadleen sheekh axmed shaakir isaga oo sheegay in safarkiisa maanta uu ku imaan doono dhuusamareeb uu baaqday sababoo la xiriira shaqo awgeed arrintan ayaa waxa ay aada uga caraysiisay kooxda ahlusunna waljamaaca oo rabtay in ay muujiyaan madaxweyne xaaf in isaga laga maarmay hogaankii galmudugna uu yaallo dhuusamareeb cabdisamed sheekh maxamuud iyo cali wardheere caliyare ayaa aada isugu mashquuliyey in ay farmaajo ku qaniciyaan in uu maanta si qasab ah lagu soo diro kheyre si uu niyadda ugu dhiso kooxda ahlusunna waljamaaca ee fadhigoodu yahay dhuusamareeb
weli ma cadda in xasan cali kheyre uu maanta imaanayo dhuusamareeb in kale. haddii uu yimaado dhuusamareeb waxa uu la kulmayaa kooxda ahlusunna waljamaaca oo aan wakiil ka ahayn shacabka iyo dowladda galmudug. haddii uu baaqsadana waxa uu ballanfur ku sameynayaa ballantii uu ka qaaday kooxda ahlusunna waljamaaca. dhinaca kalena wufuud kala duwan oo ayaa la filayaa in maanta ay soo gaaraan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, kuwaas oo ka kala imaanaya magaalooyinka Nairobi, Muqdisho iyo Gaalkacyo. sida wararka aan ku helinay sheegayaan, waxaa magaalada Cadaado maanta la filayaa inay soo gaaraan oo ay ka yimaadeen magaalooyinka Muqdisho, Nairobi iyo Gaalkacyo wafdi ballaaran oo isugu jira ganacsato, xildhibaano, senataro iyo waxgarad ku soo beegan sida la tilmaamay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. wufuudan ayaa halkaas u tagaysa soo dhaweynta iyo sidii loo xaqiijin lahaa in madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu ka helo magaalada Cadaado wixii uu ku waayay magaalada Dhuusamareeb oo fariisin ballaaran u noqotay ururka ahlusunna waljamaaca. wufuudaas ayaa ah kuwa ka soo horjeeda siyaasadda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo tallaabada ay qaaday dowladda federaalka ee dhalisay in Xaaf uu ka ambabaxo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. wararkii ugu dambeeyay aan Cadaado ka helin ayaa sheegaya in uu xalay ka socday dhaqdhaqaaq xoog leh kaas oo isugu jira mid abaabulka soo dhaweynta madaxweyne Xaaf iyo mid lagu diyaarinayo madaxtooyada uu degi lahaa madaxweyne Xaaf. sidoo kale waxaa la magacaabay guddiga soo dhaweynta madaxweyne Xaaf. waxaa sidoo kale Cadaado ka socda ka qaadida ciidamo ku sugan magaalada Cadaado oo ay ku jiraan ciidamada NISA oo hoos yimaada dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ilwareedyo ayaa isha wararka u sheegay in magaalada laga dareemayo qabanqaabo xoogan. magaalada waxaa horay u deganaa madaxweynihii uu magacaabay xasan cali kheyre axmed maxamed baasto oo Cadaado isaga cararay kadib markii uu la baxsaday lacago deymo ah oo ay gelisay dowladda dhexe markii ay halkaa u direen. madaxweyne Xaaf ayaa weli aan go'aan rasmi ah ka gaarin in uu si toos ah u tago maanta magaalada Cadaado, in marka hore uu ka hormaro magaalada Gaalkacyo kadibna uu dhankaas ka soo galo magaalada Cadaado. Xaaf ayaa xalay cashi sharaf iyo sooriyo loogu sameeyay deegaanka Gudonlabe oo ku taal inta u dhaxaysa Cadaado iyo Dhuusamareeb. maxay isku qabsadeen injineer Yariisow, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo marwada koowaad ee madaxweyne Farmaajo? gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sameeyay shaqo joojin, isaga oo shaqo joojintaas ku sameeyay 5 ka mid ah agaasimayaasha gobolka Banaadir, halka uu xilki gab ahaanba ka qaaday 5 agaasime. qorshaha xilka qaadista ayaa ka dambeysay kadib markii musuqmaasuq baahsan oo ka jira gudaha gobolka Banaadir oo la ogaaday, iyadoo agaasimayaasha xilka laga qaaday laga dhigay inay lunsadeen hanti badan oo tiilay gobolka Banaadir oo ah hanti dadweyne. warbaahinta isha wararka ayaa waxay ogaatay in agaasimayaasha xilka qaadista lagu sameeyay ay ka mid tahay Ayaan Xaaji oo ah agaasimaha dakhliga canshuuraha ee gobolka Banaadir. Ayaan Xaaji ayaa u dhaxda Faysal Cabdi Macalin oo la dhashay marwada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Zeynab Cabdi Macalin marwe Zeynab ayaa markii ay ogaatay in Ayaan xilka laga qaaday waxa ay furatay afka labadiis, iyadoo hore u diidaneyd xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii hore dhanka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Xuseen Dhagweyne oo ay qaraabo ahaayeen. wararka ayaa sheegaya marwada oo careysan ayaa waxa ay la hadashay injineer Yariisow una sheegtay in asagana uu ka dambeyn doonin Ayaan Xaaji haddii uusan u soo celin xilkeeda inta aanay gobolku dhicin. Ayaan Xaaji ayaa waxaa taleefanka ku wacay injineer Yariisow, raaligelina ka bixiyay, waxa uuna intaa ku daray in uu dib uga laabtay wareegtadii uu xilka kaga qaaday oo una sheegay in Ayaan ay soo shaqo tagto. xilalka gobolka Banaadir ayaa waxay noqdeen kuwo ay ku hardamaan marwada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre, iyadoo dhammaan ilaha dhaqaalaha ee gobolka Banaadir madax looga dhigay shakhsiyaad ay isku heeb yihiin marwada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. isha wararka ayaa ogaatay xubnaha shaqo joojinta lagu sameeyay iyo kuwa shaqada laga eriyay. waxaa shaqada laga qaaday agaasimayaasha kala ah: 1 agaasimaha adeegyada gobolka Banaadir, agaasimaha shatiyada gobolka Banaadir, agaasimaha gaadiidka gobolka Banaadir, agaasimaha dakhliga gobolka Banaadir, agaasimaha canshuuraha gobolka Banaadir. waxaa shaqada laga joojiyay agaasimayaasha kala ah: agaasimaha waaxda howlaha guud ee gobolka Banaadir, agaasimaha waaxda dhigista gobolka Banaadir, agaasimaha waaxda dhulka gobolka Banaadir, agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir iyo agaasimaha waaxda mashaariicda ee gobolka Banaadir. wejiga labaad ee dib u habeynta ciidanka xoogga dalka ayaa bilaabatay.
taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay bilaabatay wejiga labaad ee dib u habeynta ciidamada xoogga dalka kadib markii wejiga koowaad uu guul ku soo dhamaaday. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu shaacinayay bilaabashada wejiga koowaad ee dib u habeynta ciidamada oo ka dhacday taliska ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada. Wejiga labaad ayaa ku kooban hubinta ciidamada goobihii lagu diiwaangeliyay ee dhammaan gobolada dalka Soomaaliya iyo qiimeyn guud oo lagu sameynayo tayada ciidamada si loogu saleeyo dhameystirka baahida ciidanka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmi Naqasho ayaa xukuumadda iyo taliskaba ku ammaanay guusha ay ka soo hoyeen dib u habeynta ciidamada wejiga koowaad oo lagu hirgeliyay diiwaangelintooda, tirkoobka iyo dejinta nidaamka mushaar bixinta ciidanka xoogga dalka oo ciidamada lagu siiyo xisaabaadka bangiyada. Taliyaha ayaa saraakiisha ciidanka ku amray in ay la shaqeeyaan saraakiisha ku howlan qorshaha dib u habeynta ciidamada ee booqanaya goobaha ay ciidamadu ku sugan yihiin. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa ka go'an inuu ku guuleysto dib u habeynta ciidamada qalabka sida oo ay qayb ka ah howlbeegyada ugu muhiimsan tubta amniga iyo cadaaladda. Wasiir ka mid ah wasiirada dowladda Galmudug ayaa la sheegay in lagu xiray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in arrintaas ay tahay waxba kama jiraan. Axmed Shire Falagle oo ah wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa la tilmaamay inay xireen ciidamo booliis oo ku sugan Dhuusamareeb, laakiin taas ayaa noqotay mid been abuur ah kadib markii uu warbaahinta la hadlay isaga oo sheegay in ay been tahay wararka sheegaya in lagu xiray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dhuusamareeb ayaa xiisadda ka taagan ay cirka isku sii shareertay markii magaalada uu ka baxay shalay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay afgambigii fashilmay ee gobolka Maxarada Itoobiya. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareysay isku daygii afgambiga ee ka dhacay gobolka Maxarada dalka Itoobiya kaas oo lagu dilay mas'uuliyiin iyo saraakiil badan. Waxaa ka mid ahaa xubnaha la dilay taliyihii ciidamada militariga Itoobiya, madaxweynihii deegaanka Maxarada iyo saraakiil kale oo ku jiro la taliyihii madaxweynaha gobolka Maxarada. War-saxaafada ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu tacsi u dirayso mas'uuliyiintii lagu dilay isku dayga afgambi ee ka dhacay gobolka Maxarada Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in la soo afjaray afgambigaas lana xirxiray qaar ka mid ah ciidamadii ka dambeeyay, xaaladuna ay gacanta ku hayso dowladda. Madaxweynihii hore ee Galmudug oo sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ku guuldareysatay xalinta Galmudugga. Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ku guuldareysatay xalinta mashaqada muddada dheer ka ololsan dowlad goboleedka Galmudug. Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka shaqeynayso in maamulka Galmudug ay gacanta u geliso koox gaar ah isla markaana aanay arrintaas sax ahayn. Waxaa shaki ku jirin in dowladda dhexe ku guuldareysatay xalinta mashaqada muddada dheer ka ololsaneed dowlad goboleedka Galmudug iyadoo aan reer Galmudugna isku dhaafin si ay arrimahooda u xalistaan ama aan ka ciyaarin door shariif ah oo ay farqiga iyo dhibaatada maamulka dhex jirtay lagu xalinayo, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug. Mudane Guuleed oo sii hadlay ayaa yiri haatan waxaa muuqata inay dowladdu ka shaqeynayso sidii awoodii maamul ee dowlad goboleedkaas ay gacanta u gelinayso koox gaar ah, arrinkaas oo aan sax ku ahayn mid maamul iyo sharci midna. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay dowladda inay xaaladda u cagdhigto arrinta maamulkaas aysan geyn meel aan laga soo qaban karin isla markaana ixtiraamo sharciyada dowladnimo iyo mid maamul ee Galmudug ka jirta. Ugu dambeyntiina dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa kala saxiixday dhismaha dekedda Hobyo. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa wadahadal laba dhinac leh la yeeshay dhigiisa China, waxaana uu kulankaas ka dhacay Beijing, caasimadda dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu ammaanay kaalinta China ee difaaca arrimaha Afrika ee fagaraasha caalamiga iyo xal u helidda dhibaatooyinka walwalka leh ee dadka qaaradda haysta, si gaar ah kuwa la xiriira nabadgelyada, ammaanka iyo horumarka. Wuxuu tilmaamay xiriirka taariikhiga ah ee qotada dheer ee Soomaaliya iyo China ka dhexeeya iyo sidoo kale laga maarmaanka ay u tahay in laga shaqeeyo horumarinta iskaashiga wax wada qaybsiga dhinacyada kala duwan leh, si gaar ah dhaqaalaha, ganacsiga, ka faa'iideysiga waayo-aragnimada China ee dhinacyada horumarinta kaabayaasha, wadooyinka, tamarta, tiknoolajiyadda, dalxiiska, beeraha, caafimaadka, sayniska, dhaqanka, shidaalka iyo gaaska,
taas oo ka gacan geysan karta xoojinta iyo guulkeenida qorshaha horumarinta qaranka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Ghana waxa uu carab ku dhuftay sida dalkiisa ugu faanayo xiriirka taariikhiga ah ee kala dhexeeya Soomaaliya dhinacyo kala gedisan leh, si gaar ah siyaasadda iyo ganacsiga, iyo sidoo kale isku dhawaanshaha aragtiyada iyo mowqifyada labada dal ay ka kala qaataan arrimaha caalamiga iyo kuwa gobolka. Dhammaadka wadahadalka diblomaasiyadeed ee salka ballaaran, Soomaaliya iyo Ghana waxay kala saxiixdeen heshiis ku qotoma iskaashiga dhaqaalaha iyo farsamada. waxaa wararku ay sheegayeen sidoo kale la isku afgartay dhismaha dekedda Hobyo ee gobolka Mudug. halka warkaas daawadayaal idinkaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka. markana wararka dibadda, natiijada doorashada ku celiska ahayd Istanbul ayaa la shaaciyay. musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ah ee CHP, ninka la yiraahdo Ikram, ayaa ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday Istanbul. Ikram oo ah 49 jir oo aanan si wanaagsan loogu aqoon siyaasadda Turkiga ayaa ka badiyay musharaxii ka socday xisbiga talada haya ee AK, sidoo kalena ah ra'iisul wasaarihii hore ee Binali Yildirim oo isagu qirtay in doorashada loogu guuleystay. waa markii labaad oo Ikram uu ku guuleysanayo doorashada duqa Istanbul kadib markii ay guddiga doorashada diideen natiijada doorashada Istanbul ee 21 bishii March. sida ay muujinayso natiijada hordhaca, musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ayaa helay codad dhan 53.86%, halka Yildirim uu helay 45.23%. guushan ay gaareen mucaaradka ayaa waxay dharbaaxo ku tahay xisbiga oo hogaamiyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo muddo dheer ku awood badnaa magaalada Istanbul. warkii oo daawada xiligan kaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.